kasoo xulnay arday macna 60 qoys ayaan kasoo xulnay oo arday iskool dhigata oo agoon iyo dad danyar ah isugu jiro waxaan soo jeedinay baaq in macna maadaama bishii barkeysneed ee Ramadaan la galay in dadka la afuriyo qaasatan dadka ilmo agoonta iyo kuwa danyarta nasiib wanaag waxaan naga aqbalay walaalkeen Adnaan Cabdegweyne oo naga aqbalay in 60 arday aan macnaa codsanay oo ardayda iskoolka wax ku dhigtaan qoysaskooda in 30 qoys kamid ah in uu naga aqbalay oo macnaa afur u diyaarshay afurka runtii waa aragtay hortiin ka muuqato raashin kala duwan waaye raashinka macnaa meesha ka muuqato waxa waaye fura ka muuqdo bariis iyo sokor iyo saliid iyo timir iyo baasto marka waxa waaye 30 qoys waaye marka insha Allah Ilaahay subhanahu qaadir waxaan ka baryaynaa in 30 kala qoys oo noo dhiman Ilaahay idinkiisa inay heli doono marka walaalkeen Adnaan Cabdegweyne isna waxaan leenahay muraadkiisa Allah saalo meesha joogan Allah ku nabad yeelo cudurkan dunida ka jiro oo ummadda haligana ummada islaamka meel walba ay joogan Allah ku shartiro Allah ka nabad yeelo qaasatan ummadda Soomaaliyeed runtii oo muslimiinta ah in Allah ka nabad yeelo marka walaalkeen si gaar ah waxaan jecelahay waalidiinta runtii maanta iyaga laftigooda waalidiintii qaarkood waaba joogaanba qaarkood gudaha ay ku jiraan marka inaan duceyno in muraadkiisa Allah saalo waxa gaala ay joogaa hanti ku haystaa hantida meesha ku haysana Allah ku nabad yeelo runtii iskoolkan hadda meesha ka furanay runtii kaalin weyn buu ka qaatay ninkii ugu dhiirigeliyay in la furo iskool lacag la'aan ah oo ilmaha agoonta ay ku danyarta waa qofkii ugu horeeyay way ee ugu dhiirigeliyay oo macallin aadan ku wakiishay iskool fur oo ardayda macnaha agoonta iyo ku danyarta iskoolkaas u fur marka ma sha Allah waa soo dhaweynay waana ka aqbalnay marka fadligiisa ay ka aatay ragga kale ee iyana soo noqotay ee kamid ah ee guddiga ay dadka jaaliyada dibadda jiro iyagana maadaama oo Adnaan oo naga ballan qaad waxbarashadii iyagana waxay dhahan Adnaan oo kaliya waxbarashadii ku gudeeyno anagana qaybteena ka qaadeynaa isna uu ku aqbalay marka isla runtii kaalin buu ka qaataa qaybta waxbarashada maanta waa aragtaan afrinti waa qaybta ugu horeysay ayuu afrin 30 qoys ayuu sameeyay isna muraadkiisa Allah saalo hadana waxaan ku soo dhaweynayaa macallinka wiilkaada Adnaan Cabdegweyne ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وسلام يا يركي عدنان عبدي سلام بقول كيتم كفرتك سلام معلمين انت حواي متقنا دكسيد اسكجوغان انا لو متقنا اي معلم وحواي وكسو دعينا الهي وحاج عيشه خير الله كسي وحي شر الله كحجاب أنا وأكون مع سنتا إنتان أمة محمد أو إسلام نيك سو فير شيء وأدعيه هنا عوي مالن بقول جلاتك أو لهنا برنا وأكون سو آخرنا هنا قرب هذا وحكوا سو أذن متقنا أو كاشتو كلا عليه وكسي وهذا الله كو بركة وعليه كو ديوي الله كو بركة وكل واسطة بيشا بركة سن مركز أو قعنت أو قلت يعني أقوى مكان وحواي أو يتيمك دعوة الله أكبر لا يكون أقبل آمين وحواي جعلنا متقنا ونكنا كربا جرت كربونك على فيد آمين كربونك على فيد آمين بقى جعل برد الله كل شيء آمين بارك وسد عين آمين الحمد لله وسلامته اسمنا 30 qoys oo afuri maxaa ugu duceynaysaa waxaa ugu duceynaa inuu Ilaahay khayr siiyo
وعدو الإلهي كقبته آمين أو رجينا إنه عقلت الوحدة ما شاء الله. الحمد لله أنا إلى الله هلني قال على سيو آمين آمين على كسيو آمين آمين سورات الثلاثة سورات كذا لا أسمع صوصوا واي هاي هاي وين كان عندنا عبد الويل عبد الويل آمين لا قصد قادر على حولك عدوا إلى فقط أنت مسلم وقعان قبطي وقعان قبطي أنا في المال لا قارع آمين مرات كسلاسة ساسوة هذا ما إيه هون هاي قعان قبطي ولاك عبد الويل اللي بقى عدنا عبدي اسم مرات كيس الله سلام مركز سلام عدونا الله كقبته ما شاء الله إن شاء الله ويشوف الله كنا بديله آمين الله أولا بدنو هيا أولا وضع يهانتي ليش وهاي دلوك قال حاولنا وهنا إلهي عدوها كقبته عدو كيس الله كقبته قال الله كسرته بركيس السنة الله صدمه مركوا كسا ذكر وعلى الله ضدك مش جوجم هالمر إلى فرقة Ayo.